19 January sanadkan dhamaanaya 2018 Wasaaraha Soomaaliya ayaa Muqdisho ku soo dhaweeyay maxaabiis laga soo daayay dalka Hindiya. Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mudane Mahad Cabdulla Cawad ayaa garoonka Muqdisho ku soo dhaweeyay ku dhawaad 42 maxaabiis dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo ku xirnaa dalka Hindiya, kuwaas oo helay xorriyadooda kadib dadaalo badan oo dowladda federaalka Soomaaliya sameysay si loo sii daayo muwaadiniinta Soomaaliyeed. Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu soo dhaweeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed kuwaas oo siyaabo kala duwan ugu xirnaa dalka Hindiya. Waxay ka turjumaysaa sida xukuumadda Soomaaliya ay ugu dadaalayso in dhammaan maxaabiista Soomaaliyeed ee laga soo daayo wadamada ay ku xiran yihiin lana dareensiiyo in dalkooda dowlad leeyahay muwaadiniin u damqanayana ay hogaaminayaan. qaar ka mid dhalinyaradan laga keenay dalka Hindiya oo warfideenka la hadlay ayaa sheegay in aysan filayn marnaba in si degdeg ah loo sii deey karo, isla markaana xabsiyada dalka Hindiya ay dhibaatooyin fara badan ku haysatay. shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel walba ay joogaan inta dhalinyaradeen oo ay dalka dibadooda ku xiran tahay sidaan waagi hore idin sheegay ma nasan doona hadii Ilaahay yiraahdo. inta qof Soomaaliyeed meel ku xiran yahay waan soo deyn doonaa. kuwa halkan yimid iyagana waxaan leenahay dalkiina ku soo dhawaada. waxaan u sheegaynaa waalidkood la caweeyo caruurtiina. waxa kale oo aan leeyahay haddii aan gacmaha isqabsano maalin walba guul sidaan ay mid ka fiican ayaa noo soo hoyanaysa. waxaan u hambaleynayaa dhammaan dadka ka shaqeeyay. waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay'adaha dawladda arrimahan ku howlanaa. waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato. waa mahadsantiin. 30 May ee sanadkan sii dhamaanaya 2018 waxaan garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ee Muqdisho laga soo dejiyay 154 dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo ku xirnaa xabsiyada dalka Liibiya. qaar ka mid dhalinyaradaas warbaahinta la hadlay ayaa xusay in ay aad ugu faraxsan yihiin in dalka dib ugu soo laabtaan, gaar ahaan Muqdisho oo ah caasimadda dalka hooyo. dowladda uu hogaamiyo Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa dadaalo badan galisay sidii loo soo cedeyn lahaa maxaabiista ku xirneed dalka Hindiya. dhalinyaradan ayaa sheegay in muddo dhibaatoonayeen xabsiyada ku yaala dalka Liibiya kuna heeseen dhibaatooyin kala duwan, kuwaas oo sheegeen inay ka mid ahaayeen jirdil. November 7 sanadkan sii dhamaanaya 2018 maxaabiis kale oo laga keenay dalka Liibiya ayaa laga soo dejiyay garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde, kuwaas oo diyaaradiisa ay waday 124 dhalinyaro Soomaaliyeed oo kuwaas ku xirnaa xabsiyo ku yaala dalka Liibiya. maxaabiista Soomaalida ayaa isugu jira rag iyo dumar, qaarkoodna waxaa ka mid ahaa caruur oo xaq ku dhashay ama xabsiyadaasi ku dhashay, waxaana wajiyada laga dheehan karay dhibaatooyinka ay la kulmeen intii ku xirnaayeen xabsiyada ku yaala dalka Liibiya. waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ku soo dhaweeyay wasiir ka tirsan xukuumadda iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah shacabka reer Muqdisho oo garoonka ka hortagay dhalinyarada in muddo ah ku dhibaatoonaya xabsiyo ku yaala dalka Liibiya. qaar ka mid ah dhalinyarada ku xirnaa dalka Liibiya ee lagana soo dejiyay garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ayaa la hadlay warbaahinta, waxaana sheegay in dareenkooda aad maanta u faraxsan yahay, isla markaana ay la murgoonayaan dadka Soomaaliyeed ee weli ku xiran xabsiyada ku yaala dalka intiisa kale, gaar ahaan kuwii ka yimaadeen ee ku xiran qaarkood Liibiya. والله ليبيا waxaan soo galay markay ahayd bishii shanaad iyo labadeedii ayaan soo galay Liibiya. marka niyo Liibiya way iska dhib badan tahay, horta magaalooyin badan ayaa dhalinyarada lagu haystaa. niyo dhalinyaro saaxiibada iyo hadda Ilaahay oo naxariistay wiilal badan ayaa ku dhintay meesha. sida aniga wiil bustahil oo jiro kale Allah oo naxariistay uu dhintay, wuxuuna u dhintay garaacitaankii magafa uu garaacay sankii afku dhiiga keenay. gabadh kale bishaaro la yiraahdo reer galka ayaa ay dhimatay. waxay u dhimatay jugta ay ugu geysanayeen ninka magafa, maadaama uu meesha salaada subax baa la istoosiyaa. salaada subax inta la istoosiyo ayaa waxa la garanka waa laga siibiyaa xataa dumarka, laakiin iyaga lagama siibo dharka. ergeyga gaarka ah xukuumadda federaalka Soomaaliya uu qaabilsan ka hortagga tahriibka iyo xuquuqda carruurta Marwo Maryan Yaasiin Xaaji Yuusuf ayaa u mahad celisay sida dowladda Soomaaliya ay xil iskaga saartay sii deynta dhalinyaradaasi. waxay tani barbar socotaa qaybna ka tahay ballanqaadadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sameeyay ee ahaa in uu gurmad u fudin doono shacabweynaha Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan daafaha dunida. November 28 sanadkan sii dhamaanaya 2018 garoonka Muqdisho waxaa laga soo dejiyay maxaabiis ku xirnaa dalka Uganda. 6 muwaadiniin oo Soomaali ah oo tan iyo 2014 ku xirnaa dalka Uganda ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii dowladda Soomaaliya ay ka shaqeysay sidii loo sii deyn lahaa. muwaadiniintan Soomaaliyeed waxaa garoonka Aadan Cabdulle Cismaan ku soo dhaweeyay xeelalaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir, wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka Mudane Maxamuud Cabduqaadir Hilaal iyo xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale. dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleystay inay sii deyso dhalinyarada badan oo Soomaaliyeed ku xirnaa dalalka Ethiopia
India, Seychelles, Libya, Uganda kuwaasoo siyaabo kala duwan ugu xirnaa dalalka aan ka soo sheekeynay. Hadiyeeshee dowladda Soomaaliya ayaa dhexda u xiratay sidii dhammaan dalka dib loogu soo celin lahaa maxaabiista kala duwan ee ku xiran dalalka dunida.